ardaydu xagga baarkeerinada qaarkood baa ku dabaqo in badan isoo weydiiyey halkan waxaa ku yaala dad tallaabaya waa idinka arkaya calaamadihii qasabkii dad baa tallaabaya mar haddii calaamadda qasabkii waa wax iminka taagan bay sheegaan calaamadaha buluugii waan isla garanay haddaba su-aal baa imanayso kule ovogongsteelaha ama halka laga tallaabo halkaa harkaha ay ku qoran yihiin calaamadaha caddaanka ee dhulkee dadku ka tallaabaan intee ka hor baan ayaan gaadhiga ku baarkin garayn karaa intee ka hor waa 10 mitir inaan weeyaan ka hor 10 mitir marka 10 mitir ayaad u jirsanaysaa 10 mitir waad soo tallaabso soo soco kadibna 10 mitir kaalay 10 mitir baad u jirsanaysaa laakiin su'aasha labaad waxay tahay kadibna ma ku baarkin garayn karaa kadib waa kuwan meeshii laga tallaabayay waa kuwan inkasta halkan ay waddo tahay halkan maaha meelaha la dhigay laga hadlay oo waa waddo weyn halkan oo kale mamnuuc inay tahay calaamad baa taala waa tan calaamadii u dambeysay waa ka madaxii soo markaysid soo calaamadii kuwa markaysid kadib waad dhigi kartaa halkaas oo kale waad dhigi kartaa halka yar in yaroon ka soo dhaqaaq halka waad ku baarkin garayn kartaa laakiin waa haddii aanay ku oolin mamnuuc baarkeerin mamnuuc ilaa halkan oo kale imka lama ogolo wadadan iskama dhex dhigi karaysid laakiin waa meelaha qaar baarkeerin mamnuuc markuu ku yaalo lama dhigi karo ma dhigi kartid laakiin inta kale oo dhan waad dhigi kartaa marka Allah idin barakeeyo saa ula socda waxa kale oo muhiim ah in la fahmo isgoyska meesha isgoyskana ma dhigi karaa meel isgoysa sida isgoyska nimka soo socdo kale ma ku baarkin garayn karaa iminka halkan waxa yaala waa mamnuuc baa calaamadii baa taalo kuma baarkin kartid isgoyska laftiisa 10 mitir ayaad u jirsanaysaa waad dhigi kartaa 10 mitirna waad u jirsanaysaa laakiin isgoyska kadib ma dhigi kartid